xiga inuu sidan inagoo ka fiican oo bashbashiye barwaaqa ku nool waxaan mahad u naqayaa xubnaha halkan ka soo wada qayb galay oo soo sharifay ilaahay ha sharfee Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaanta ay u soo jeediyeen ciidanka oo dhan oo qalabka sida iyo xusuusta ay xusuusteen wasiirku ila xusuusiyay raggii shuhadada ahaa kuwii dambe iyo kuwii horeba ee naftoodii u furay inay dalkan masiibadii ilaahay ku salliday inay ka xoreeyaan ee maxamed siyaad barre loo odhan jiray macneeyey waxa ay tahay ciidannimo waxay tahay ama waajibaadkiisu yahay military wasiirkaas raxay oo aanu waxba dib uga noqon maayo waxaase tilmaamayaa oo ila ogeydeen raggiinana kulligiin muddaa jiri jirtay dagaalkii sane ee ka horreysay masiibadii siyaad marka suuqa 3 nin oo dirayskii militariga sita ay maraan in wax walba dadka ay dhex marayaan dhigi jiray oo ay shacabka u tumi jireen waa wada garanaysaa wada ogtihiin waxa ka dambeeyay oo ay soo marteen oo ay la wada ogtihiin in dirayskii marka la arko sidii war ari dawaca arkay laga didi jiray oo laga yaabay inaad soo celisaan oo aad ku dadaashaan in mar labaad suuqa martaan shacabka la idinka tumo waxaan idin waa haystaan waddadiisii waayo shalaytana intiinan iyo in la mid ahoo suuqa joogta ayaa dalka walaaqday maantana aniga iyo Sheekh Ibrahim iyo qaybo laguma fadhiyo dalka iyo ina riyaale dalka lagu hurdaa ee dalkan dhisay ee nabadda ka dhigay idinka weey meeshii qayla ka soo yeedhaba idinka ayaa taagan isoo cadhoodaba ka dhex gelaya oo labadii wax ismoodaba heshiisiinaya oo kii gardarooda qabanaya waxaan idinku bushaarinayaa raggiinni joogay og taarkiisa saaka iigu dambeeyey meesha la iiga keenay in arrinkii dhammaaday oo dhammeeyeen in labadii reer gacanta la isu saaray oo ay iscaanaqeen odayaashood in lagu heshiiyey in qoladii wax dishayna ay magbixiso qoladii wax laga dilay iyagoo samirsan oo raaliya ay magtii qaataan oo xoolihiina imika badankoodii la hayo wixii kale ilaa barito la sugayo 6 nin ee la hayayna marka xoolaha la kala qaato la sii daayo oo ay ka timi nimankii wax laga dilay inay yidhaaheen wax dambe la dili maaye magtayadii hanoo keeno nimankiina la iska sii daayo libtaas raggii idinka mid ahaaba inteeda badan leh tii halkana intii uu tilmaamayay taliyuhu intaas oo dhan libteeda idinka lahaa way jireen odayaal iyo wasaaro iyo wadaado idin iyo odayaashii guurtida oo socday oo meesha ka garnaqayay way jireen laakiin wixii wax kala fadhiisinayay cududii la soo mari waayay ee qiimaha iyo qadarka u yeeshay taladii odayaasha tiinay cudurkiina waxaan leeyahay markaas libta wadada haysaan shacabkii baa gaari doontaan dhaqso u gaari doontaan kuwada halka ka wadaan halka soo noqonin waxaan idin sheegayaa idin tilmaamayaa waa ognahay libta ku leeyihiin dalkan Soomaaliya intaas ragiinaas oo kale oo la kari waayay oo qorigoodii dhiibi waayay oo oday diiday oo shahaado diiday oo arki soo dhaafay ayaa baabi'iyay maanta oo ilaa maanta dab ka karayaayo maxay ahayd aan la gurigiisii guurdi
idinku odayaashiina waa aqbasheen hubkii waa dhiibteen waxaa ku darteen dadaalkan iyo maxay ahayday shaqadan iyo nabad ku dadaalkan ayaa ku darteen waxaan leeyahay taariikhda waxaa loo qoraa inagu ma qorro taariikh wax badan muran badan oo maanta yaalla magaalada Hargeysa oo laysla laysku mari la'yahay ayaan jireen oon lagu murmeen haddii aynu qorro taariikhihii aynu soo marray kii dagaal kii nabadeed kii maxay hayday wax ururin kii SNM haddii aynu taariikhdii qori lahayn oo maalin walba mowqifkii la galay sidii u dhacay loo qori lahaa oo loo ogaan lahaa oo maanta buug laga akhrisan lahaa haasaasa badan iyo hadallo badan oo maanta suuqayna dhex yaalla baa joogay ayaan jireen waxay la tahay wixii maanta ka dambeeya waxaan ku faraxsanahay inuu taliyuhu khudbadu akhriyay oo mid qoran ay ahayd oo gacanta ka akhriyay oo aynu kal dambe la soo bixi doono oo ay baridan jaraa'id ku soo bixi doono waxa weeye wax qoristu way nagu dhaweeyo dhawaan baynu wax qorray waxaan laga maarmin weey waayo dariska maanta aynu marayno berrito ayaynu ka faa'iideysanaynaa tii shalaytana ayaynu ku baranaynaa wixii aynu qalad sameynay si aynu berrito uga bayno marka waxaan xoogaa yararka idinka sheegaya wixii aynu ka soo baxnay ee aynu maanta inaga oo iska tira mooyaane aynaan meel maraynin wixii ay ahayd qisa yar ay idinka sheekeeyaan ku qoslinay waxaan siyaada bari yeeray oo isagoo doonayay inuu Mareykan iyo maxay ahaydeen nimankii qarbiga la wareey jiray uu yar sasabto ayuu yidhi baa mushtarigan xor ka dhigayaayo waxaan samaynayaa rugtii ganacsiga oo maxay ahaydeen private oo ay leeyihiin nimanka ganacsatada iyo ninkaas afyaqaana maxay ahaydeen qarbiga isaga ayaa u dhiibayaa buu meeshii buu diiday rugtii ganacsiga markaan meeshii la bulo joogay oo maalin meel casrimada baan waxaan isugu nimid ninkii samatir loo dhin jiray magaasuu yidhi ka waran shaqadii meeshii lagu dhiibay ma haagsantahay wallahi de waxba garan maayo wax la ii dhiibay iyo wax kala garan maayo meesha nin baa ka madax ahaan jiray ninkiina waa joogaa xafiiskiisiina waa fadhiyaa anigana meeshii madax baa lagaaga dhigay baa la yidhi dee miyaanu ninkii basbarba fadhiisanaa maxaa sidee bay tahay waa garan la ahaye say tahay baan wuxuu yidhi war kacaankan ma taqaanid oo adigii ka maqnaan jiray anigu saasaan ku dhaqannaa buu yidhi meel laba nin oo heshiisihii joogaan annagu ma doonino ma rabno buu yidhi waxaanu doonaynaa meel walba laba nin oo isku hayo aanu u garnaqno taasaanu ku annaga niyaddu noogu fadhiisanaysaa buu haddiise laba nin oo meel ka wada shaqeeya heshiisiyo shaha wada cabayaan waa kala kaxaynaa wuri maantaas waa inaga inoo shirayaan yaa inaga ayay waa dhagar qabadu ka dhaqdhaqaaqad yaa maqli jirtay waxaynu ka soo baxnay waxaas ahaydoo inan iyo aabihi inan iyo hooyadeed nin baa maxay inuu cabdi walaalaha baan malaynayaa maalin halkan uu yimi ka hadlayay ayuu wuxuu ka cawday caruurtiinan maxaa u qaban weydeen buu dhagaxa tuuraysa ee dadka ahaayaysa aflagaadada samaynaysa maxaa u qaban weydeen buu yidhi nin la igu yidhi almaan joogay meesha cabdi walaabo habaa yidhi waardehaada kuwa waadigii laga qaaday dumarka iyagiina hooyooyin la baxay iyagiina caruurta iyadiina ubax ula baxay ee yidhi aabbaydhahay dee meesha ay isku qabateen adaa oganigu maanu ogay xaggiina aan ugu tirinaynay xaggiina ayaan ugu tirinaynay buu ku yidhi baa la yidhi waxaan leeyahay markaa waxa weeye waxa inaynu loola weeye raggiina maanta hubka wada sida ee wada dhimanaya ee wada haraadaya ee dhibtu wada gaadhayso dhaxantu wada jiifo idinkaa waxayso ah idinkaa isu yeelin kara dabadidinkaga yimaadaa wax allaala wuxuu idin yahay ma jirto haddii aanu haynkaa shacabka idin tumaayo ee idinku diirsanayo ee araggiina ku farxaya haddii aanu ahayn kii kale wax allaala wuxuu idin yahay wuxuu idinla joogaa waa dhib iyo balaayo waxaa ku dhacay qalada Soomaali ku dhacday maxay ahayd xagga ka bilaabay ilaa waxa la taariikhdii u baadno weeyaan caalamkoo dhanna waa mid ay nala qabaan oo meeshii ay ka dhacdayba sida loogu bacay oo loogu baranbalay waxa weeye
dawladnimadu waxay leedahay laamay leedahay iyo waxay leedahay mid waliba shaqo gooniya bay leedahay marka milatarigu siyaasad gal ama siyaasigu milatariga farageliyo waxa ka imanaya wax qorahay waxa weeye baaba iyo waxa ay tahay cudurka la saari kari ilaahay kaas salayto dhacay buu haye la yiri laba nin oo heshiis oo koob saha meel ku wada cabaya lama rabo waayo waa laga shaqeeyaa anaga inoo tashanaya baali waa dhagar qab waa wuxuu boobay waxa uu wuxuu dhiibatay idin ka cadow idin ma idin arkimaaya walaal iyo wanaag bay idin ayay idin rabaan waxaan leeyahay markaas wada jirkaas ayaa idinna wax ku noqonaysaan dalkana wax kaga dhigaysaan horta idinku wada jira waxaan idinka warramayaa haddaba annagu haddaan dawladdiina horta waxay u dhimateen waa wanaagsan yihiin waana dayactiray dawladnimadeenni maanta wax kastaba dheefi ha noqotee waa caalamkii waa qirayaa in dalkan Soomaaliland dal lisan oo degan oo dawlad leh oo caalamka mid ay la simayeen mooyaane wax yari ka horeeya inuu yahay waa la qirayaa taa waa la inoo qira awoodii baa weli in lagu yaro libta la isuma quudhe weli caalamku wixii uu oran jiray waxba la isasiiya waxba idiga lagama soo gaadhin arigeeni waa la soosiyay la yiri maxay hayday la iibsan maayo cudur ayna weligan maqal ayuu qabaabaa la yiri caalamka dadkii cudurrada sheegi jiray waa wada eegeen waxay qabaan ma jirto baa la yiri haddana weli way nasaaray sanad iyo dhowr bilood weli sidii baa maxay hayday uu albaab ayuu xidhay waxaanu goosanay haddii aanu ragii dawladda nahay wax kastoo kaleba ha baaqdeen wax kastoo kaleba ha la waayo wax kastoo kaleba ha laga caajisto laakiin nimankaas hubka sida ee dalka u soconaya gunnada yareedu siinay raasi xoogaaga ee raasiga ku nool yihiin dhiiggeena haddaynu shubayno waa inaan la waayin marnaba inaan isaga la waayin hor dadaalka intaa weyn haddii ilaahay bari farash wuu furayaa waan ogahay waa layna tababarayaa sida ay ragii sheegayaan 10 sanadood ayaa nabigii Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa lagu hayay marka oo la garaacay ragii wixii ashahaataba la garaacay oo qowda lagu hayay 10 sano ayaa markii la tababaray ee ay bilab noqdeen ee ay isku duba dhacay baa hadaba tagoordo oo dawlad ka dhisa maxay hayday Madiina tagoordo dawlad ka dhis maalinta waa halka talaabadii halka ay ka bilaabeen caalamka intii la yiqiinay bay qabsadeen markaa qabsadeen ilaa maxay hayday Spain ilaa China ay qabsadeen caalamka oo dhan tababarkay soo mareen waxa la yiri maxay hayday Umar bin Khattab baa la yiri ayaa maalin u sheekay wuxuu 2 casho 3 casho ayaan midna markaan xusuusto waan islaabuy midna waan ooyaabuy midna ilaahay baan ayaan maxay hayday u mahadnaqaabay maataan waan ooyaayo anigoo inantaydii aasayay oo u qodaayo qabrigii aan ku ridi lahaa iyadoo noolaan ku aasi lahaa ayay iyana garkaygii boorkii ka tumaysay buu ka iga biinay ana xabaashii baan qodayay buu ku ridi lahaa waa aqeedadii ay haysteen inay hablaha aasaan maalinta markaan taa xusuusto iyo jaahilnimadii inantaydii aan ku dilay iyo raxmadii ay garkaygii ka biinaysay maxay hayday boorka ka tumaysay markaan xusuusto waan ooyaabay marna waan qoslaabuu yidhi safar anigoo u baxay ayaana qalkay waxaan ka sii qaatay buu ilaahay yaro xalwada ayaan ka sii qaatay buu guriga sii qaatay si caabudo ahay ilaahay baan weel ka dhiganay soconay buu safarkii baa nala dheeraaday oo saadkii baa naga go'ay oo waa gaasoono magaasa hor maxaynu yeelaa waa kala iska cunno mid dambaynu samaysan doonaa ilaahay baan cunnay buu maalintan taa xusuusana waan qoslaabuu idinna waxaanu idinka ballan idinka doonayna ballan waxaanu idinka rabnaa idin dawladdu ma shaqaysaan ninna uma shaqaysaan qarankaasa u shaqaysaan oo u tihiin ciidan u tihiin qarankaa wada jirkiisa iyo amnigiisa iyo walaalnimadiisa inaa ka shaqaysaan
oo aan hudhu dadaan meel ayna geynayaan jirin awrkaaga buu inaan kula furi doonin yuu kula furi doonin yuu kula rari awrkeen waxaan idinka ballan qaadaynaa inaad gaar ka tihiin idinka iyo inta idinka maqaniba sida ammaanta uga tihiin inaad u tihiin nasteex qaranka iyo dalka inaad dhisataan wargeel baa raaci jirtay 13 bilood baa laga dhulki jirtay 13 bilood way dhali doontaayo dambar baad ka cabi doontaa ka dhami doontaa dambar ayaad ka dhami doontaa waa ka dhami doontaan sanaa ka badan dambar wax ka wanaagsan baa ka dhami doontaan kana gasada oo dawrta oo yaan la idin soo dhaafin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee ku saabsanaa xuska munaasabadda ciidanka qaranka oo ku beegnayd maanta oo bisha February ay ahayd 2 ahaydna sanad guuradii shanaad ee xuska maalinta ciidanka qaranka waxaanu ku soo gabagabaynaa intaasi anigoo Cabdirashiid Sheekh Cabdi Maxamed Awaadan oo filimka inoo soo qaaday iyo Muqtaar Ismaan oo stuudiyaha baahinta inoo jooga habeenkan caawa tan iyo kulantideena dambe waxaan iskaga tagaynaa sidaas intaas iyo nabadgelyo dhamaantiinba